بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ذا مقالة مقدشو قيبت لح dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika dacalkiisa bari. qaybtan waxaanu kaga hadli doonaa sulaalada hiraab ee saldanada muqdisho. waxaa kale oo loo yaqaanay sulaalada yacquub. waxay ahayd sulaaladii ka talinaysay muqdisho marka laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 17aad ilaa iyo inta lasoo gaarayay qarnigii 19aad, oo ahayd waqtiguu talyaanigu qabsanayay dalka, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. imaamka ayaa madax ka ahaa sulaalada yacquub. imaamka ugu horreeyeyna waxa uu ahaa imaam cumar, wuxuuna ahaa imaamkii hogaaminayay kacdoonkii ka dhanka ahaa ee jebiyeyna saldanadii ajuuraan. waxa uuna abuuray saldanad ama imaamad xoog leh. saldanada ajuuraan waxay soo saartay amar ah in dhulka ay ka talisaa ceelasha ku yaala darandooluhu ay ka waraabsan karin xoolahooda maalinimada, balse loo ogol yahay inay waraabsadaan habeennimada oo keliya. dhibaatooyinka oo gaaray heer aan loo dulqaadan karin ayaa keenay in ay talo iskula noqdaan darandoolaha. madaxdooduna waxay go-aamiyeen in ay ka dhiidhiyaan kana dagaalamaan. waxayna ku dileen imaamka ajuuraan meel la yidhaahdo ceel cawl. arrintaana waxay ahayd dhimbishii ololisay dagaal ku dambeeyey in ajuuraan uu dhulka ka qaxo. waxaa kale oo ka mid ahaa waxyaabihii fududeeyey inay dhacdo saldanadii ajuuraan ka tuuridii xukunka laga tuuray aala musafar ee magaalada muqdisho, kuwaas oo la gaashaanbuur ahaa saldanada ajuuraan muddo dheer, iyo soo gelidii hiraab magaalooyinka xeebaha ku yaalo, iyo ka guuleysigii laga guuleystay saldanadii selcis oo iyadana gaashaanbuur la ahayd saldanada ajuuraan, uuna u itaal sheegtay abbaanduule ibraahim adeer oo laf ahaantiisa ahaa abbaanduule ka tirsan ciidamada ajuuraan, kaas oo dhankiisa dhisay sulaaladii goobroon ee degmada afgooye. dagaalyahan dhallinyar oo ka tirsan darandoole ayay isku raaceen hiraab inuu hogaamiyo, wuxuuna qaatay magaca imaamka hiraab, wuxuuna xarun ka dhigtay muqdisho, gaar ahaan degmada shangaani. kacdoonka guuleystay ee darandoole waxa uu sababay qabaa'ilka kale inay bilaabaan inay ku kacaan kana hor yimaadaan xukunka ajuuraan marka kor iyo hoos loo raaco dooxada webi shabeelle. qabaa'ilka xawaadlaha iyo gaaljecelka ayaa waxay iyagana dhankooda u tafaxayteen sidii ay iskaga tuuri lahaayeen xukunka ajuuraan. dhowr olole oo guuleysan waaye kadib waxay u midoobeen arrintaa, wayna ka hoos baxeen xukunkii saldanada ajuuraan. sidoo kale dagaalo faraha loogu gubtay kadib qabaa'ilka habargidir iyo duduble iyagana waxay ku guuleysteen in ay ka saaraan ajuuraan gobolada mudug iyo galguduud. sanadku markuu ahaa 1700, qabaa'ilka hawiyaha waxay ka talinayeen dhul ballaaran oo ku dheraran marka laga bilaabo dooxada webi shabeelle ilaa iyo mudug, iyo dhulka xeebaha ah ee muqdisho iyo hareeraheeda ah ilaa iyo inta la gaarayo hobyo. isla marka ay meesha ka baxday saldanadii ajuuraan, hiraab waxay dhiseen qaran madax bannaan oo xukunka hayay muddo 2 qarni ah, sida uu shariif cayduruus ku xusay kitaabkiisa boqyat al aamaali fi taariikh assumaal. waxa uu yidhi sanadkii 1686 waxaa la duubay imaamka hiraab ee uu magaciisu ahaa imaam maxamed, imaam axmed, imaam maxamuud, imaam cumar hilowle al yacquubi. waxa kale oo uu buuggiisu ku qoray in sharibaadii ugu horreysay ee awoodda difaaca muqdisho, taariikhdu markii ay ahayd maalin sabtiya 4 bisha Diseembar sanadkii 1700. waxay ahayd iskudaygii uu isku dayay faransiiska inuu qabsado magaalada, isaga oo kusoo weeraray 7 markab dagaal, hareereeyeyna dekedda muqdisho. waxayna ku hareereysnaayeen muddo 11 maalmood ah. wax kasta oo ay sameeyaan way ku dhici waayeen inay qabsadaan magaalada muqdishona waxay ku guuleystay inay dib u waabiso weerarka.
xamarweyne iyo shangaani way u midoobeen ka hortagga hadidaada iyo khatarteeda. saldanadii ajuuraan waxaa bedelay imaamadii hiraab, taas oo ay hogaaminaysay sulaaladii yacquub. imaamada hiraab waxay dhistay xukun midaysan oo leh hab kala dambeyn maamul dowladnimo. waxay samaysteen calan, waxayna xiriir si joogtaa ula samayn jireen maamuladii la dariska ahaa iyagoo isticmaalayay qoraalka carabiga ah. canshuuraha waxaa loo qaadi jiray habka xoolaha nool iyo dalaga beeraha. waxa kale oo imaamadu abuurtay ciidan military. imaamada hiraab waxay ka qeyb gelisay maamulka qabaa'ilka hiraab oo dhan. marka ay tahay dhanka la talinta iyo hogaaminta ciidamada, waxaa mas-uulka ahaa habargidir iyo duduble. dowrka culimada diinta iyo weliba garsoorka waxaa u xil saarnaa sheekhaal. imaamnimada waxay u gaar ahayd abgaal. imaamku kuma koobnayn hiraab oo keliya ee waxa uu imaam u ahaa oo madallada imaamada hoos imaan jiray qabaa'il kale. imaamadu markay dhisantay waxay toos u xukumaysay marka laga bilaabo muqdisho oo banaadir ahayd ilaa iyo dooxada webi shabeelle, ilaa iyo galguduud inta laga gaarayo mudug, taas oo ay ku jirto hobyo. imaamada hiraab waxay caasimad ka dhigatay muqdisho. sulaalada yacquubna xukunkeedu waxa uu ahaa mid ah habka dhexaltooyada. imaamku wuxuu ku qaabili jiray marti sharafta magaalada muqdisho, iyaduuna kula kulmi jiray madaxda sida suldaanka zanzibar iyo dhulmareennada ajnebiga ah. wuxuuna u magacaabi jiray cid hagta inta ay dhulka joogaan, una fududaysa ganacsigooda iyo howlahooda. rebeki bereketi oo ahaa baare talyaaniga ayaa booqday banaadir, ahaana sida la sheegay ninka bixiyey magaca soomaaliya. aadna uga hadlay dhaqankii imaamada ayaa qoray sidan: waxay u ahayd caado iyo dhaqan soomaalida in marka la duubayo imaam ama ugaas, dabaaldeg iyo xaflad muhiim ah oo ay kasoo qeyb galaan qabaa'ilka oo dhan. isku imaad weyn oo lasoo bandhigo ciyaaraha loo yaqaano shirta iyo ciyaaro kale. cuntooyin badanna waa la cunaa, heesana waa la qaadaa, taa oo uu u jeeday shiribka. waxaa kale oo la qabtaa ku tartanka fardaha. xafladahaas waxay socdaan ilaa iyo muddo bil ah. wuxuu kaloo sheegay inay ahayd xaflad weyn oo xitaa hadduu laba qabiil dagaal ka dhexeeyo, xafladda duubka imaamka ama ugaaska colaada waa la joojiyaa ilaa iyo intay xafladda duubka ka dhammaato. xafladda duubka imaamka waxaa madaxa loogu duubaa mayrax laga soo diray geed gaar ah. hobyo waxay u ahayd imaamada xarun ganacsi oo barwaaqo ah. dhanka beeraha ee ceelbuur iyo xaradheerana waxay soo saari jireen masagada, galleyda iyo digirta. waxaa kale oo intaa dheeraa xoolaha oo isugu jiray geel iyo lo iyo ariga noocyadiisa, aricadka iyo idaha. dekada hobyo waxaa laga dhoofin jiray waxyaabo ay ka mid yihiin hargaha, beeyada iyo sabiibka. waxyaabaha ugu waaweyn ee laga soo dejin jirayna waxaa ka mid ahaa bariiska, cuntooyinka qaar iyo dharka. ganacsato meelo kala gedisan ka yimid ayaa imaan jiray imaamada si ay uga dhoofiyaan dharka, macdanaha qaaliga ah iyo luulka badda laga soo saaro. dalaga kasoo go-a dooxada webi shabeelle oo ahayd dhulbeereed muhiim ah sida beledweyne iyo jowhar, waxaana kasoo go-i jiray miro ama faakiho iyo qudaar fara badan. waxaana la keeni jiray muqdisho iyo warsheekh. soo degidii dad fara badan ee magaalooyinkii ku yiil koonfurta waxay sare u qaaday barwaaqadii imaamada. waxaana soo kordhay maraakiibtii imaanaysay banaadir si ay uga ganacsadaan iyo weliba si ay sahay uga qaataan. waxaa caada maray dhaqaalaha imaamada hiraab ee dhulka gudaha ah, hadday tahay dhanka xoolaha iyo hadday tahay dhanka beeraha ee dooxada webi shabeelle iyo dhulbeereedka gobolada dhexe iyo ganacsigii ka socday dhulka xeebaha ah. dekadaha hiraab waxaa kale oo laga dhoofin jiray hargaha, foolka maroodi, dharka, dahabka, nuxaasta ama qalinka, luulka badda laga soo saaro, cambarta iyo waxyaabo kale oo badan. sir john kirk oo noolaa intii u dhexaysay sanadkii 1832 ilaa iyo 1922 waxa uu ahaa dhakhtar. waxa uuna la socday baarihii caanka ahaa ee david livingstone. waxa kale uu ahaa maamulihii dowladda ingiriiska ee zanzibar. waxa uu tegay soomaaliya sanadkii 1873.
waxa uuna la kulmay imaam maxamuud waqti barwaaqo dhaqaale oo xoog leh ay ka jirtay, waqtigaas oo ay imaamadu ahayd xoogga ugu muhiimsan ee ka jiray gobolka. ganacsigii ka dhexeeyey muqdishada hiraab iyo saldanadii galladii oo uu hogaaminayay suldaan axmed yuusuf wuu bulaalay. kirk waxyaabaha uu arkay waxaa ka mid ahaa in ka badan 20 markab oo waaweyn ay ku xirnaayeen dekadaha muqdisho iyo marka, laguna daabulayay galley laga soo saaray beeraha suldanada galladii. badeecadaana inteeda badan waxa ay u socotay Zanzibar. imaamadu waxay lahayd ciidan rasmi ah oo booliis ah oo ilaaliya sharciga iyo kala dambeynta, iyo militari u qaabilsan difaaca cadowga dibadda oo hubaysan, waxayna ku dhaqmaysay shareecada islaamka. waxaana jiray ilaalo u gaar ahaa ilaalinta safarada ganacsiga ee dhulka gudaha ah, waxaana hawshaa u diyaar ahaa cutub aada u diyaarsan dhanka hubka oo farda fuushan. waxaana canshuuraha loo soo ururin jiray miro ahaan iyo xoolo ahaan. waxa kale oo ay lahayd imaamada ciidan bad oo ilaalin jiray xeebaha imaamada, una taagnaa ciribtirka cid kasta oo isku dayda burcad badeednimo. intaana waxaanu kusoo gabagabaynaynaa qaybtii 6 ee taariikhda saldanadii muqdisho. qaybta 7aadna kala soco isla halkan oo ah janalka Rugta Hiddaha. dadku yaqaan